بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ugu horeyn waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed maadaama la gelayo marxalad loo socdo doorashooyin oo ololo badan iyo hawl fara badan ay sugayso waxaan markii hore ugu hambalyeynaa shacabka Soomaaliyeed bisaylka ay muujiyeen iyo inay u diyaarsan yihiin nabadooda inay ilaashadaan inay lafdhabar u yihiin saldhigna u yihiin una bisil yihiin nabadda inay ilaaliyaan nabaddu sidee raba iyo ammaanku mucaaradna shaqa ku male muxaafidna shaqa ku male waa dan guud oo ummadda Soomaaliyeed ay leedahay oo ka wada dhaxaysa oo in la wada dhowrto loo baahan yahay marka sidaa darteed waxaan ugu baaqayaa in aan annagoo wada shaqayn naga dhaxayso wasaaradda arrimaha gudaha oo ayadu shaqada waditaankeeda iyo howlgalkeeda iyo howlaheeda shuqul ku leh annaguna naga khusayso dhinaca amniga ayaa waxaan ugu baaqaynaa ciidamada ammaanku in ay sugaan amniga ayagoo ilaalinaya dareenka shacabka saaxiib ka dhiganaya shacabka mar walbaba uu saaxiib leeyahay oo amniga sugitaankiisa ayaga asaga u kaashanaya madaxda Soomaaliyeed hadday tahay mid imaanaysa ama mid joogta ayna kala qaad lahayn oo dhammaantood ay u siman yihiin in amniga la sugo nabadda la sugo cid gaara oo amnigu asaga oo ilaaliyana ayna jirin oo danta guud oo ilaaliyo arrinta ugu muhiimsan waa arrintaas oo aan rabo in aan ku adkeeyo mar kale waxaan ka codsanaa oo ugu baaqayaa ciidamada amniga in ay shacabka saaxiib ka dhigtaan garab ka dhigtaan kaashadaan waxa ay u taagan yihiin waa ayaga shacabkana waxaan rabaa inaan mar kale u sheego sidaan horeba u sheegnay inaan mar kale ku celiyo oon sii adkeeyo in ay yihiin waxa lagu xasilan yahay nabad lagu yahay lagu jiifo lagu ganacsado inay yihiin wiilashooda amniga ka shaqaynaya oo qorraxda qabowga u taagan mar labaad iyo mar saddexaad iskaashi iyo wadajir inuu dhaco ujeedaduna waxa waaye wasaaraddu ay leedahay amnigaas oo loo midaysan yahay oo la wada leeyahay oo danta guud ah in la sugo aad iyo aad u mahadsantihiin